halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban FM-da magaalooyinka qaar iyo barteena internetka bbcsomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subax Isniina 6 bisha Abriil saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 7 subaxnimo gawa. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenani waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Britain oo hospitaal la dhigay, boqoradda Ingiriiska oo sheegtay in uu dalkeeda ka guuleysanayo dagaalka uu kula jiro COVID-19, Djibouti oo sheegtay in coronavirus looga badbaadi karo duco oo keliya. marka anaka waxa qulantay aan doonayna maanta cilmi iyo awood iyo wax ka baxayna ee ducaan ka baxayna, waxaan leenahay Ilaahayo nagu goobaan leenahay maanta wax kale awood aan leenahay ma jirto saga qabanay ee nagu goobo oo naga badbaadi musiibooyinka socdo. xanuunka coronavirus oo ganacsiga xawaaladaha Soomaalida hoos u dhac ku keenay 90% hoos u dhac dhinacaas ayaa jira. dadku xawaaladaha ma dirsan karaan, ma iman karaan, sida awgeed wax shaqo ma jiro maadaama isu socodkii la xayiray. 10% baa waxay isticmaalaan qaabka marka loo yaqaano online systemka. Soomaalida Kanada oo samaysatay koox bulshada ka wacyigeliso xanuunka coronavirus. qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacadeena subaxnimo uu soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali anoo Cabdiraxmaan Xaaji Cadoon la socodsiinaya. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii idaacadeena iyo Axmed Badar. maasanid Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. ra'iisul wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa la dhigay isbitaalka kadib markii calaamadihiisa cudurka corona ay sii xoogaysteen. 10 maalmood kadib markii la xaqiijiyay inuu qabo cudurka corona ayaa waxaa la sheegay in weli heerkulka jirkiisa uu aad u sarreeyo. Mr Johnson ayaa waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee dalalka quwadaha waaweyn oo haleela cudurka COVID-19. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu u isticmaalay shirkiisa jaraa'id ee maalinlaha in uu saadaaliyo in la joogo gabagabadii cudurka corona ee dalka Mareykanka, isla markaana ay muuqdaan ifafaalo wanaagsan. balse waxa uu ka digay in labada toddobaad ee soo socota ay noqon doonaan kuwa adag, isla markaana dad badan ay dhiman karaan. madaxweyne Trump ayaa mar kale ku baaqay isticmaalka daawada chloroquine oo ah mid loo isticmaalo cudurka malaariyada, iyadoo ay jirto muran ka taagan saameynta ay yeelan karto isticmaalkeeda ama ku keeni karto jirka. Mr Trump ayaa waxa uu ka maganayay in Dr Anthony Fauci oo kala taliya dhanka cudurrada caabuqa uu ka jawaabo su'aalaha mawduucan la xiriira. in ka badan 300 oo kun oo qof ayuu cudurkani ku dhacay gudaha dalka Mareykanka. saraakiisha dalka koonfurta Kuuriya ayaa waxay sheegeen in dalkaasi laga helay 47 kiis oo cusub oo cudurka corona, taasi oo ah tiradii ugu hooseysay tan iyo intii cudurkaasi uu ka dilaacay bishii February. heerka cudurka corona ee dalka koonfurta Kuuriya ayaa hoos u sii dhacaysa toddobaadyadii ugu dambeeyay, isla markaana kiisaska laga helay intooda badan ayaa waxay ahaayeen dad dalkaasi dibadda uga yimid. dowladda koonfurta Kuuriya ayaa muddo 2 toddobaad kordhisay xilliga ay soconayaan shuruucda la xiriirta kala fogaanshiyaha bulshada. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa ugu baaqay dowladaha caalamka in markaasi la dagaalankooda COVID-19 ay qayb ka mid ah ka dhigaan ka hortagga tacadiyada dhanka haweenka. muuqaal uu barta Twitterka soo dhigay ayaa Mr Guterres waxa uu ku sheegay in xanibaadaha lagu soo roga dhaqdhaqaaqa shacabka ay noqon karto mid dumarka lugta uga xira ragga ay nolosha la wadaagaan ee tacadiyada kula kaca. waxa uu intaa ku daray in toddobaadyadii la soo dhaafay ay sare u kaceen tacadiyada ka dhanka haweenka, isla markaana tiro badan oo haween ay soo waceen telefoonada xaaladaha degdega qaar ka mid ah dalalka. ugu dambeynna qiimaha shidaalka caalamka ayaa mar kale hoos u dhac ku yimid kadib markii dib loo dhigay wadahadaladii la doonaya in lagu xalliyo ama markaasi looga gudbo muranka taagan. saliidda cayrin ayaa hoos u dhacday 8% suuqyada Aasiya. 2 ka mid ah dalalka waaweyn ee soo saara shidaalka oo kala Sacuudiga iyo Ruushka ayaa midba midka kale ku eedeeyay guuldarrada heshiisyo hore looga gaaray xadidaadda wax soo saarka dhanka shidaalka. warkii dunidana waa naga intaan dib u ku celiyo Cadow. aad buu mahadsan yahay Axmed Badar oo nala socodsiinayay warka idaacadeena subaxnimo. halkaad nagala socotaana waa BBC.
ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa la sheegay in la dhigay isbitaal ku yaala magaalada london. afhayeen u hadashay aqalka looga taliyo britain ayaa sheegtay ra-iisul wasaaraha xaaladiisu inay ahayn mid khatara. dhanka kale boqoradda ingiriiska elizabeth oo la hadashay shacabka dalkaasi britain ayaa sheegtay in ay dalkeeda ka guulaysan doonto dagaalka ay kula jirto cudurka samafarka ee coronavirus. boqoradda oo shacabka dalkaasi u jeedisay khudbad naadir ah ayaa shacabka dalka britain uga baaqday inay iscaawiyaan. waxaan faahfaahin warkaasi ku saabsan goor sii horreysay aan ka waraystay wariye aadan maxamed cabdisaalimiin oo london jooga. cabdiraxmaanow ra-iisul wasaaraha waddanka britain boris johnson ayaa goor dhoweed waxaa loo qaaday cisbitaal ku yaala magaalada london sida ay shaaciyeen afhayeenad u hadashay aqalka looga taliyo britain ee down street ee number 10. waxa ay sheegeen aqalka looga taliyo saraakiil ka tirsan ee down streetka ee number 10 in ra-iisul wasaaraha sababta loo qaaday ay tahay tallaabooyin xagga taxadarka hordhaca laakiin xaaladiisu aanay ahayn mid halisa. ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu la xanuunsanaya cudurkaasi muddo 10 casho ah iyadoo la sheegay markaa qandhadiisu inay noqotay mid joogto ah sidaas awgeedna cisbitaalka loogu qaaday in baaritaan lagu sameeyo. ra-isul wasaare boris johnson isagoo weliba ku jiray qolkiisa oo isku go'doomiyey ayaa waxa uu ka hagayey howlaha xagga dowladda iyo xagga hogaaminta iyo weliba talooyinka dhinaca caafimaadka iyo talooyinka guud ee la siinayey dadweynaha britain si markaasi ay u guulaystaan cudurka viruska corona. saalimiin boqoradda ingiriiska boqorad elizabeth ayaa la hadashay shacabka dalkaasi ingiriiska iyadoo fariimahan aan looga barano yihiin fariin naadir ah marka fariinteedu maxaa ugu muhiimsanaa? cabdiraxmaanow boqoraddu sidaad sheegtayba waxa ay jeedisay hadal naadir ah oo mararka qaarkood ay jeediso. waxa ay ka hadashay waktiga adag ee u k iyo caalamku uu marayo gaar ahaana dhaqaalaha adag oo haatan caalamku uu soo wajahay. waxa ay ka hadashay nolosha markaasi isbedeshay ee nolol maalmeedka dadka caadiga ah. waxay u mahad celisay hay-adda caafimaadka ee waddankan britain ee loo yaqaano NHS iyadoo ay sheegtay in hay-adaasi ay shaqo aad iyo aad u adag ay hayso. waxaa kaloo u mahad celisay shaqaalaha udubdhexaadka u ah ee iyagu markaasi ka shaqaynaya sidii nolosha caadiga ah ay usoo laaban lahayd. sidoo kale waxay u mahad celisay kuwa iyagu guryaha ku sugan ee weli iyagu kaalmaynaya dadka jilacsan. waxa ay sheegtay in laga guulaysan doono la dagaalanka cudurkaasi virus corona. waxayse ay sheegtay waa haddii dadku ay midoobaan oo ay mid u noqdaan la dagaalankaasi. waxa ay sheegtay sharafta iyo qiimaha britain ay leedahay in aanay qeexaynin waktiyadii lasoo maray oo keliya laakiin ay ka turjumayso ay qeexayso waktiga haatan la joogay iyo mustaqbalka. boqoradda queen elizabeth waxa ay ka hadashay guud ahaan dalalka caalamka iyo weliba waxa ay tiri dalalka ururka barwaaqa sooranku waxa ay u midoobeen bay tiri la dagaalanka cudurkaasi iyo waktigan adag ee lagu jiro iyadoo taasi ay dhalisay dadku inay iscaawiyaan. waxa ay sheegtay oo si gaara u xustay in dhibaato adag ay ku sugan yihiin kuwa iyagu go'doonsan ee noloshooda markaasi go'doomiyey sababaha cudurkaasi uu keenay awgeed. waxa ay ka hadashay xusuus markii ay yarayd 1940 oo qasriga Windsor oo caawaba ay ka hadlaysay iyadoo ku sugan iyada iyo walaasheed ay warbaahinta ka hadleen oo ay ka hadlayeen xilligaasi dhibaatooyin jiray oo ahaa markaa in carruurta la qixinayay si ammaan loogu helo. laakiin waxay tiri caqabadihii xilligaasi jiray haatan ma jiraan oo haatan caalamkii oo dhan waxa ay u midaysan yihiin sidii ay wax uga qaban lahaayeen arrintan caalamka cuslaysay ee la dagaalanka viruska corona. waxay sheegtay u k in ay guulaysan doonto inkastoo laga yaabo bay tiri in maalmo markaasi adag ay weli harsan yihiin haddana in maalmihii caadiga ahaa iyo noloshu ay soo noqon doonto. saalimiin magaalada london wararka ka imanaya waxay sheegayaan in fanaanka weyn ee soomaaliyeed axmed ismaaciil xudaydi uu ku xanuunsanayo magaalada london. maxaynu kala soconnaa? cabdiraxmaanow waxaan goor dhaweyd la hadlay mustafa ibrahim oo ka tirsan qoyska axmed ismaaciil xuseen xudaydi oo ah abwaan kabaniiste caana laxamiiste. waxa uu ku xanuunsanayaa cisbitaal ku yaala magaalada london ayaa loo qaaday sida uu ii sheegay sababtuna ay tahay viruska corona oo isagana haleelay. waxa uu sheegay xaaladiisu in ay degan tahay dhakhaatiirtuna ay la tacaalayaan ayuu ii sheegay. runtii waxa uu ahaa fanaan aad iyo aad markaasi iyo abwaan iyo laxamiiste iyo kabaniiste ay soomaalidu u taqaano. mustafana waxa uu ii sheegay weli xaaladiisu in markaasi ay degan tahay dhakhaatiirtuna ay la tacaalayaan laakiin waxa uu xaqiijiyey inuu cisbitaalka markaasi isaga laftirkiisu uu ka mid ahaa dadkii iyo cisbitaalkaasi ku daryeelayay oo tegey oo qoyskana ka tirsan xanuunkaasina uu ku dhacay dhakhaatiirtuna ay haatan xaaladiisa la tacaalayaan. wixii ka soo baxo oo markaasi dheeraadana dabcan waxaanu ku sheegi doonaa barnaamijyada soo socda.
aad buu u mahadsan yahay aadan maxamed cabdi saalimiin oo london jooga halkaasi aan waraysi kala yeeshay xaaladda waraysiga boqoradda yacni khudbadda boqoradda aan idhahdee iyo weliba ra-iisul wasaaraha hosbitaalka la dhigay. haddii facebook aan soo qabto mahdi jibriil xaaji oo jooga ceerigaabo waxa uu yidhi boqoradda ingiriiska ee sheegtay in uu dalkeeda markaa ka guulaysanayo dagaalka uu kula jiro covid-19 runtii hadalka boqoradda waxaan u arkaa mid xaqiiqda ka fog oo ay niyad ugu dejinayso shacabka reer Britain waayo waxaa gudaha dalkeeda marba mar kasii dambe sii kordhaysa dadka u dhimanaya cudurka coronavirus. waa fikirka dhegaystaheena. isla wararkii coronavirus aynu ku jirnaay bal iminkana aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee cudurka iyo weliba caalamka wararkii ugu dambeeyey gaar ahaan Talyaaniga, Spain, Australia iyo wadamada kale. Cabdiqaadir Yuusuf Caliya ayaa isha soo mariyay oo noo soo koobaya. cabdiraxmaan, tirada guud ee laga xaqiijiyey dunida dacaladeeda ayaa haatan gaadhay 1.3 milyan oo kiis sida laga soo xigtay tirakoobka jaamacadda Johns Hopkins. Maraykanka ayaa weli hogaaminaya tirada laga helay fayraska corona taasi oo gaartay 337,274 waxaana soo raaca Spain iyo Talyaaniga oo kala ah 131,646 iyo 128,948. dhanka dhimashada weli waxaa majaraha u haya Talyaaniga waxaanay haatan gaartay ku dhowaad 16,000 oo qof. guud ahaan dunidana waxa uu cudurkan galaaftay nolosha 69,444 qof. cabdiraxmaan, dhinaca kalena dalkaasi Jabaan ayaa waxaa lagu wadaa in uu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah maalmaha soo socda waxaana sida sheegtay warbaahinta maxalliga ee dalkaasi iyadoo tirada uu soo ridanayo xanuunkan ay sare u sii socoto inkastoo dalka lagu soo rogay xayiraado adag. waxaana la filayaa in ra-iisul wasaare Shinzo Abe uu ku dhawaaqo tallaabadaasi gelinka dambe ee maanta inkastoo ay u badan tahay in isla maanta aysan dhaqan geli doonin. waxayna u badan tahay in xaaladda degdeg ah lagu soo rogo magaalooyinka sida Tokyo iyo Osaka. wadarta guud ee Jabaan laga xaqiijiyey ayaa waxay gaaraysaa 3,600 halka dhimashaduna ay tahay 85 qof. Australia ayaa iyadana waxaa laga xaqiijiyey in ka badan 5,700 oo kiis oo ay ka mid tahay 37 dhimasho ah. cabdiraxmaan, aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Yuusuf Cali. dhinaca Facebook haddii aan soo qabto fikirka dhegaystayaheena waa Badri Cabdullaahi Ibraahim oo jooga Boorama. runtii caabuqa coronavirus waa masiibo caalamka oo dhan farabaas ku haysa umana muuqato midda ilaaha markaa naga xakamayn karo ilaa ilaahay naga qabto mooge. hase yeeshee waxaan alle subxaana watacaala ka baryaynaa inuu naga badbaadiyo innaga iyo weliba dhammaanteen halista cudurkaasi. dhammaan inta uu haleelin caafimaad degdega ayaan u rajaynaa ayuu yidhi. aamin aan leenahay caafimaad degdega annagan u rajaynaynaa. halkaad nagala socotaan waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. dalka Jabuuti waxa uu ka mid yahay dalalka laga helay fayraska corona. tallaabooyinka lagula dagaalamay cudurkaasi iyo weliba cawaaqibka ka dhashay waxa uu saameyn ku yeeshay xeryaha ay dadka qaxootiga ah ku jiraan ee dalka Jabuuti, gaar ahaan dhaqdhaqaaqooda iyo weliba isu socodkooda. xaaladda dadkaasi ayaan ka waraysanay agaasimaha howlfulinta hay-adda taakulaynta qaxootiga Jabuuti ee loo yaqaano ONAS, Xuseen Xasan Dharaar, wuxuuna u waramay wariyaha BBC Bushra Nuur Maxamed. cudurkan ilaahay hanaga nabadgeliyey fara kulul baa adduunyada ku hayaa. tabaabusho weyn baa dowladdu ay u qaaday, meel kastaba heegan baa laga wada dhigay. annaguna haddaan mas-uuliyiintii nahay qaxootiga heegan baana la geliyey. aad iyo aad baan ula soconnaa adduunyada wixii ka dhacaya. weli haba yaraatee xiriin qaxootiga wax saameyna oo qof waxa cudurka haya weli ma hayno siday dhakhaatiirtu naga yidhaaheen. waan gartay. marka kaalmadii ay dadkani ka heli jireen hay-adaha gargaarka iyo dowladda Jabuuti maxaa iska bedelay? sida ogtihiin baa amar cad baan ka haynaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha dadkan qaxootiga inaa raashin 2 bilood la siiyo. 2 bilood aan siinay oo macal guntintii yareedan siin jirnay lacag ahaan ay siin jirnay iyo raashin 2 bilood baan siinay siday u fadhiyaan degmooyinkan ay degan yihiin. hay-adihiina wixii raashina way noo dhiibeen waana gaarsiinay alxamdulilah. dadkan qaxootigana waxaan ka codsanay inay guryahooga ku ekaadaan, ay dhaqdhaqaaqa ay joojiyaan maadaama ay tahay dee waxa ku dhaatay lagu badbaadi karaya. nin kastaba aqalkiisa waa inuu fadhiyo. habeen iyo dharaarba wacyinka way wacyigeliyaan, meel kastaba way la joogaan. waxa ku dhaantay aan ku badbaadi karayno waxayaan waa inaa guryaha la fadhiyo, xerooyinkooga ku ekaadaan,
yaan jeclaanay walaashee ka dowlad ahaan ciddii tallaabooyinkaasi fulin weysa maxaa tallaabooyin dheeraad ah oo ay hay-adda qaxootiga Jabuuti qaadaysaa? horta waa dad na maqla oo na dhegeysta markaan waxaan garanay inay amarkii si fiican u fulay way joogaan ma soo dhaadhacaan alxamdulilah wax habeerateen cudurka qabana weli ma jirto qaxootiga dhexdiisa waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu noo iiban cudurka amarkiina si fiican bay u qaateen dadka ku jira xeryaha Xuseen waa meelaha loogu walwalka badan yahay haddii cudurka uu gaaro in uu si dhaqsi leh ugu faafi karo haddaba maxaa wacyigelin ah oo aad ka samayseen xeryaha qaxootiga si fayraskan looga hortago saa ogtiin dowladdu amar adag bay bixisay inaa guryaha la fadhiyo waxa quraata lagu badbaadi kara waa guryaha tala waxay soo jeediyeen dhakhaatiirka amar ku bixiyo waqtigan xaadirka waa saddexgal ninka qaxootiga ninka degmada jooga qaxootigu joogaan ee reer Jabuuti meel qulaatay wax lagu wala daweeyaa marka dhakhaatiirtiina way dhex socotaa wacyigelintiina way socotaa meel kasta habeenay dharaarba way dhageystaan waxa qulaatay aan ku badbaadi karayna waxayaan alxamdulillah waqtiga xaadirka in wadco waxa la yiraahdaa Jabuuti waa wadan yar oo masaakiinta korisa sidii xadiiskii saxiiga ah ee rag baa hoggalay dhagax baa ku soo guudumay waxa quraatay kaga baxeen waa nin kasta amarku saalaxa loo yimid waagii intuu dibadda joogay marka anaka waxa quraantay aan doonayna maanta cilmi iyo awood iyo wax kama baxayna ee ducaan kaga baxayna waxaan leenahay ilaahayo nagu goobaan leenahay waqtigan xaadirka oo naga badbaadi musiibooyinka socdo dadkan waxaan ka codsanaynaa inay amarada dawladdu ay soo bixisay in la qaato waxa quraatay lagu badbaadi karayo waa duco iyo dhulka aqalkaaga oo la fadhiyo bushra nuur maxamed aad bay u mahadsantahay warbixintaana la socodsiinaysay soomaalida ku nool gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa sameeyay koox soomaalida ka caawin doonta wacyigelinta la xidhiidha cudurka coronavirus kooxda in la aasaaso ayaa la sheegay in ay ka dhalatay baahida ay Soomaalidu u qabto fariifaha caafimaadka ay dawladda bixiso ay Soomaalidu badankeed fahmin luqadaha ay ku baxaan ilaa iyo haddana cudurka waxa ugu dhintay hal qof oo Soomaali ah Duraan Xasan Yare ayaa warbixintan noo soo diray qaar ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa sameeyay koox ay ugu magac dareen Somali COVID-19 Response Team kuwaas oo Soomaalida ka caawin doona dhanka turjumida fariimaha dawladda ee maalinlaha wargelinta iyo wacyigelinta Jibriil Cali Hareeri oo madaxa hay'adda Somali Canadian Cultural Society sidoo kalena xubinka kooxdan ayaan weydiiyay waxa ku kalifay inay qaadaan talaabadan waxyaabahan ugu dhaliyay arrinkan annagoo og dhaqanka dadkeena oo ah dad aad iyo aad isu dhaxgala oo qaraabo salaankoodu aad u badan yahay iyo macluumaadka dawladda Canada ka soo baxayay oo ku baxayay luqadaha looga hadlo wadankan oo kala ah Ingiriiska iyo Faransiiska oo aan ognahay dad badan oo kamid ah inaysan labadaas luqado si fiican si wanaagsan u aqoon waxaan go'aansanay bal in dadkii wacyigelin ka hortag ah aan ugu sameyno luqadooda Soomaaliga ah wacyigelinta waxaa ku jira sida ay ku heli lahaayeen caawinaada ay dawladda u firisay dadka caadiga ah iyo kuwa ganacsatada ah waxaa kaloo ku jira fahamka siyaabaha cudurka uu ku fido waxaan u sameynay number ay soo wacaan oo ay caawinaad ka heli karaan magaalooyinka Edmonton, Calgary, Brooks iyo Fort Mac afartaas magaalo ay Soomaalidu u badan yihiin gobolkan waxaa degan ilaa 35,000 oo Soomaali ah inkastoo Soomaalida ku nool gobolka Alberta ay wadaan dadaalkan ayaa dhanka kale ayaan Xasan Cumar oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada kuna nool magaalada Toronto ee gobolka Ontario sheegtay in ay muhiim tahay in arrintan la gaarsiiyo guud ahaan gobolada dalka si loo caawiyo Soomaalida gaar ahaan inta ay taagan tahay xaaladda xanuunka corona waxaan u mahadcelinayaa Soomaalida gobolka Alberta ku nool oo emergency response sameeyay cudurkan COVID-19 la dhaho shaqo wanaagsan oo aad iyo aad u fiican ayay sameeyeen laakiin shaqadaas mid loo baahan yahay in la gaarsiiyo guud ahaan gobolka ay degan yihiin Soomaalida ku nool wadanka Canada kooxdan emergency teamka waxyaalo badan ayay sameeyeen waxaa kamid ah inay u turjumaan dadka oo luqadda ay ku adag tahay ama dadka wadanka ku cusub ama dadka waayeelada ah inay luqadda ugu turjumaan haddii ay takhtar ahaato haddii iskool ahaato adig wixii u baahan turjumaan ama ay u baahan caawinaad marka waa arrin wanaagsan oona u baahan in la ballaariyo oo la gaarsiiyo guud ahaan qolada dalka Canada siiba gobolka Ontario si kama ay Soomaalida ay ku badan yihiin taas waxay keenaysaa in la iska warqabo oo ummadii ay ka warqabaan gobol walba Soomaalida ku nool ee dhibaatooyinkan soo food saaray
isbitaalada dalka Canada ayaa la dhigay dad la tabaalaysan xanuunka corona halka dawladda iyo howlwadeennada caafimaadku ku dadaalayaan xakamaynta xanuunka. Haddaba su'aashu waxay tahay sidee xanuunkan u saameeyay Soomaalida ku nool dalka Canada? Waa kan mar kale Jibriil Cali Hareeri. inkastoo cudurku aad iyo aad u sii fidayo maalinba maalinta ka dambaysa, Ilaahay waa inoo gargaaray oo ilaa ay hadda waxaan ognahay hal qof oo Soomaali ah oo ku dhintay magaalada Calgary una dhintay cudurka coronavirus. Canada in ka badan 15,000 oo qof ayaa qaaday xanuunka corona halka dad gaaraya 277 qof ay u geeriyoodeen, balse dadka ayaa walwalka ugu badan ka qaba faafidda xanuunkan maadaama marka ka dambaysa ay sii kordhaysa tirada dadka qaaday xanuunkan iyo kuwa u geeriyoonaya. Duraan Xasan Yare aad buu u mahadsan yahay. halka nagala socotaana waa BBC. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message. Telefoonka nambarkiisu yahay 4477622000 kadiba waxa ay kula tahay BBC Soomaali. tallaabooyinka lagu xakameynayo la dagaalanka fayraska corona ee caalamka ayaa waxa ay saameyn ku yeelatay howlaha ganacsiga ee xawaaladaha Soomaalida, gaar ahaan dalalka reer galbeedka oo ay qurbajoogta Soomaaliyeed ku soo diraan lacagaha ay ku kaalmeeyaan qoysaskooda Soomaaliya jooga. haddaba waxaan arrintaasi ka waraysanay madaxii hore isutaga xawaaladaha Soomaaliyeed ee Somsa ee dalka UK, haatanna madaxa u ah ku dhaqanka iyo weliba tababarada shuruucda daryeelka bangiga ee Iftiin Group, Macalin Jaamac Cali oo ku sugan magaalada Garowe. Kowsar Maxamed ayuuna u warramay. waa mahadsan tahay Kowsar. waxa ay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u weyn dhinaca lacag dirista. dadkii dibadda uma soo bixi karaan. macaamiisha shirkadaha 90% waxay u badnaayeen dad danyar ah oo shaqaysta oo dadkooda caawiya oo soo aada xafiiska xawaalada laga diro. xafiiska ma iman karaan, banaanka uma soo bixi karaan. saa dhibaato weyn ayay gaarsiisay shirkadihii localka ahaa oo mataqaanaa UK ama Europe ka jiray. dhibaato weyn ayay yani soo gaarsiisay in yani wax lacaga aan la diri karin. sidoo kalena dhibaatadaas waxay kusii gudbaysaa dadkii masaakiinta ahaa oo ay biilasha u diri jireen iyagana sidoo kale dareemaya culayska maadaama dadka Europe iyo America ka soo diri jiray lacagaha iyo UK aysan sidoo hore ahayn. marka hadda qaabkee ayay xawaaladuhu u shaqeeyaan haddii ay noqoto dadka lacagaha dirsanaya iyo in aad lacagaha sii gaarsiisaan dalkii? sida aan ogahay waqtiga xaadirka ah maadaama aniga Garow aan ku suganahay laakiin xiriir joogto ah aan la leeyahay maalin walba aan ismaqallo, qaabka hadda la ii sheegay 90% hoos u dhac dhinacaas ah ayaa jira. dadku xawaaladaha ma dirsan karaan, ma iman karaan. xawaaladaha waxa ay ku shaqeeyaan waa lacag kaashkii ma soo gaarsiin karaan meelihii ay rabeen laamihii lacagaha laga dirsanayay ama wakiiladii xarunta ma imaan karaan. sidaa awgeed wax shaqaa ma jiro maadaama isu socodkii la xayiray. 10% baa waxay isticmaalaan qaabka marka loo yaqaano online systemka oo shirkado yar ay leeyihiin system noocaasa. inta kalena haba yaraatay aysan lahayn. kadibna taa markii ay timaaday xitaa meelihii loo gudbin jiray ama bangiyadii internationalka ah qaarkood baa servisyada qaarkood xiray ama joojiyey oo aan waqtiga xaadirka ah aan samaynayn. marka mid kaafin karta haba yaraatee ma aha. waana hoos u dhac dhaqaale oo aad iyo aad u weyn kuna aadan dadkii lacagaha dirayay iyo kuwii loo dirayay intaba. waa tahay ugu dambeyntii saameyn noocee ah ayay culaysyadani ku yeelan karaan dadka Soomaaliyeed ee gudaha dalkii ku sugan ee ku tiirsanaa lacagaha ay qaraabadooda ama xitaa saaxiibadooda dibadda uga soo diraan? Kowsar waa aad baa mahadsan tahay. arrintan waa arrinta ugu badan oo hadalhaynteeda ay aad u socoto, culays badanna ku haysta shirkadihii xawaaladaha bangiyadii waddanka gudihiisa joogay. dhibaato aad iyo aad u weyn ayay ku haysaa maxaa yeelay lacagaha dibadda ka yimaada ayaa dhaqaalaha waddanka ku kala socday. haddii ay noqon lahayd in wax lagu iibsado, hadday noqon lahayd in yacni cuntadii, caafimaadkii, waxbarashadii, tiradii guriga, korontadii, wax walba waxa ay ku xirnaayeen lacagahaas ahayd. shirkadihii kale oo iyagana ka jiray waddanka sida kuwooda cuntada daruuriga ah, kuwii caafimaadka, kuwii kulli haddii lacagihii soo geli jiray ay 70% ama 80% ay istaageen, waxaa hoos u dhac weyn ku yimi ama ciriiri ku noqotay dadkii noloshii qutiliyoonkii maalinlaha ahaa in ay waayaan ama meel ay cidla ciirsi yacni oo ula cararaan. marka arrintaas culays iyo aad u weyn ayay ku haysaa. waxaana jeclaan lahayn qolyaha la yiraahdo World Bank in ay
xal u helaan arrintaanayto weliba ay il gaara ku fiiriyaan waddanka Soomaaliya oo 70% dadku ku nool yihiin remittansiga ama lacagaha dibadda laga soo diro. kowsar maxamed aad bay u mahadsan tahay. iminkana hindiya horaantii isbuucan ayaa ra-iisul wasaaraha dalka hindiya waxa uu shaaciyey in waddankaasi lagu soo rogay bandow amaba xayiraad ay dadku ay tahay inaysan guryahooda ka soo bixin. rahul tanda ayaa warbixintani soo diyaariyey, waa kan cabdiraxmaan dhimbilo soo jeedinaya. मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करें. kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi oo dadka saboolka ka dalbanaya cafis la xidhiidha bandiga uu ku soo rogay shacabkaasi. magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi indiya waxaa ku nool boqolaal qof oo xoogsataa oo ka kala yimid gobollada kala duwan ee dalkaasi si ay magaalooyinkaasi uga helaan masruuf ay ku biilaan qoysaskooda. haatanse xaaladda ayaa ku cakiran, wararkana waxaa qabsaday qodobkan. Now remember, due to the lockdown, many laborers, especially in the national capital Delhi, maxamed shafiiq waxa uu ka mid yahay dadka khudaarta ku iibiya gudaha magaalada Delhi. waxa uuna maalin kasta naadiyaa khudaartiisa 60 rupiya kilo piya 60 rupiya kilo piya. balse xayiraadda dowladda ayaa sababtay inuu waayo macaamiishii khudaarta ka iibsan jirtay, sidaasina waxa uu ku waayay dhowrkii dollar ee maalin kasta uu heli jiray. sidaa awgeedna wuxuu go'aansaday inuu u lugeeyo deegaankii uu ka yimid. waxa uu lugeynayay in ka badan 100 kilomitir, kadibna waxa uu tegey deegaankiisii bulanjiwi. waxa uuna sharaxayaa wixii uu bal dhexda ku soo arkay. मैं दिल्ली से पैदल आया यूपी बुलंदशहर के लिए. waxa uu ahaa safar dheer oo qaatay maalmo oo intii aan lugaynayay dadka qaar ayaa cunno i siinayay. booliska ayaa nolosha nagu adkeeyey. waxaadna arkaysaa dad badan oo lugaynaya oo ula sita. waxaan ahayn kumanaan qof oo saboola oo lugaynaya oo u kala socda daafaha kala gedisan ee dalkani hindiya. waxaan indhahayga saaray haweenay 90 jir ah oo ul ku tukubaysa, mana ogi in ay nabad ku tagtay halkii ay u socotay. waa sida uu sheegay oo ma jirto cid hubta in haweenaydaasi ay lug ku tagtay halkii ay u socotay, balse xaqiiqada ayaa ah inay jiraan kuwa sidii ay u lugeynayeen tacab iyo haraad dhexda ugu dhintay. kuwaasi waa qoyska Ramfia Singh oo isku dayay inay taleefan kula hadlaan isagoo dhexda sii lugeynaya. hadalkiisii ugu dambeeyey waxa uu ahaa soo gurmada haddii aad awoodaan. Ramfia Singh waxa uu isku dayay inuu soo lugeeyo 300 kilomitir oo ah masaafo u dhaxaysa magaalada Delhi iyo tuulada uu ka soo jeedo, balse markii uu soo lugeeyay 200 kilomitir ayuu dhexda haraad ugu dhintay, sida uu sheegay seedigii Arfin. कोरोना की वजह से किसी ने उनकी हेल्प नहीं किया. markii uu haraad iyo gaajo meel kula dhacay ma uusan helin qof caawiya sida isaga oo qaba cudurka corona. aad ayuu u baahnaa, waa uuna oonaa, balse 30 daqiiqo kadib waa uu dhintay. waxa aan rabaa in dowladda aan weydiiyo sababta ay bandowga noogu soo rogtay qorshe la'aan. Ranvia waxa uu ahaa qofka kaliya ee qoyskiisa ka shaqeeya, hadda yaa damaana qaadaya xaaskiisa iyo carruurtiisa. आर्थिक सहायता करें. dowlad goboleedyada qaar ee dalkaasi ayaa hadda bilaabay inay basas ku daabulaan dadka saboolka ee lugeynaya, waxaana dowladda dhexe ay ballan qaaday cunno iyo lacag la siinayo dadka saboolka, balse xaqiiqadu waxay tahay in malaayiin qof ay haatan haysan wax caawimaada. waa codadka shaqaalaha muruqmaalka ee doonaya inay lug ku gaadhaan deegaanadii ay ka soo jeedeen. dalkan hindiya waxaa ku nool 100 milyan oo qof oo ah shaqaale ka yimid deegaanada fogfog oo ka xamaasha caasimadda dalkaasi, balse dowladdu waxay isku dayaysaa in cudurkaasi uusan ku faafin 1 bilyan iyo 300 milyan oo qof. cabdiraxmaan dhimbil aad buu u mahadsan yahay. xubinta ciyaaraha. ciyaartooyda kooxda Bayern Munich ayaa la sheegay inay maanta oo Isniina bilaabayaan tababarada ciyaaraha markaasi ku soo fool ugu diyaar garoobayaan, waana markii ugu horeysay oo ay ciyaartooyda markaas sameynayaan tan iyo markii ciyaaraha Bundesliga toddobaadyo hakad la geliyay markii cudur ka dilaacay Jarmalka. kooxda Bayern Munich waxay ciyaartay 8 Maarso iyadoo ciyaarta ugu dambeysay halkaasi ku ciyaartay idaacadeena subaxnimo. inta ayaan ku soo gabagabeynaa sida iyo nabadgelyo.